alaabaha ugu faa'iidada badan ee online lagu iibiyo ma rabtaa ganacsi online oo khasaaro yar faa'iido fiicanna leh adiga oo maalgelin badan gelin haddii aad tahay qof doonaya inuu bilaabo online business low risk ama khatartiisu aad u yar tahay ama khasaaradiisu fiidiyogan wax badan buu ka anfici doonaa ugu horreyn waxaan soo tixi doonaa dhowr ganacsi ama dhowr alaabood oo runtii aad muhiim u ah faa'iido fiicanna laga samayn karo khasaarahooduna uu aad u yar yahay qodobka koowaad waxaan soo qaadan doonaa alaabaha la yiraahdo digitalka ama digital products waxa la yiraahdaa waa alaabaha aan la taaban karin ee online-ka lagu iibiyo waxa kamid ah alaabaha digitalka waa kuwa ugu khasaaraha yar maxaa yeelay alaaba la kaydiyo ma aha lama raro lama soo celiyo tusaalooyin waxaan u soo qaadan karnaa alaabaha digitalka waa buugta online-ka lagu iibiyo iyo koorsooyinka online courseska oo lagu iibiyo online-ka sidoo kale templateska iyo designada PDF-yada waxbarashada waxyaabahaas waxa la yiraahdaa digital products waa wax qofku hal mar samaynayo oo uu wax weeye mar walba uu lacag ka samayn karo sababtu ma aha wax alaab loo baahan in la kaydiyo iyo alaab u baahan runtii in la waardiyo midna ma aha kharash badan iyo lacag badanna kaaga bixi mayso oo costiga ama kharashka galaya runtii aad buu u yar yahay kaliya waa inaad hal mar waqti geliso oo aad samayso kadibna aad iibiso lacag joogta ah ay samayso marka ganacsiga ugu faa'iidada badan uguna khasaaraha yari waa digital product tusaale qofka hadda ama buug qoray oo kale oo buugiisa online buu ku iibin karaa koorsooyinka dadka iibiya koorsada online bay ku iibin karaan waxa la yiraahdo templateska iyo website-yada qofka template website yahaya designada ababka wax weeye runtii looga faa'iideysto online-ka PDF-yada waxbarashada kulli oo waxyaabaha online-ka lagu iibiyo runtii waxtarka badan leh faa'iidada ay leedahay marka alaabaha digitalka ah hal mar ayaad samaynaysaa marar badan ayaad iibinaysaa runtii faa'iidadaas ayay leedahay qodobka labaad waxaan soo qaadan doonaa alaabaha ugu faa'iidada badan waxa kamid ah dharka iyo agabka fashionka loo isticmaalo oo runtii maadaama uu yahay dharku waxyaabo aan laga maarmin karin ama waxyaabaha bini'aadanka nolosha asaasiga kamid ah waxay kamid yihiin waxyaabaha ugu baahida badan oo aan qofka dhar tayo lahayna runtii aysan ku daahayn oo si fiican looga iibsanayo dharku waa alaab mar walba la raadiyo alaabaha inta badan aad loo danayo waxa kamid ah funaanadaha koofiyadaha cabaayadaha kabaha fudud kulligood waxa weeye runtii wax aad loo doorbidayo waana wax qofku uu ku khasaareen hadii uu soo qaato alaab tayo leh maadaama nolosha iyo ku tiirsanaanta aad loogu tiirsan yahay dharka iyo agabka fashionka ay runtii aad u siyaaday aadna runtii xilligan la joogo dhalinyartu ay aad u jecel yihiin waxyaabaha fashionka tala ahaan waxaan kugu siinaynaa waxaad marka aad bilaabayso oo aad rabto inaad bilowdo tusaale ama dhar iyo agab fashion aad rabto inaad iibiso intaad marka horeba lacag badan iyo kharash badan iyo aadan gelin iyo inaad guri kiraysato iyo inaad waxa samayso oo dhan marka hore waxaad ku bilaabi kartaa inaad u alaab dalbato oo waqti qaadanaysa waxaad ku bilaabi kartaa drop shipping maxaa ka wadnaa drop shipping waa weynka ah ee dibadda wax laga keenayo miyaa maya su'aal alaabtaada hayso ama shirkadaha dharka iibiya dharka xayeysiiya fashion ka haya ayaad soo ogaanaysaa qiimaha alaabta ay siiyaan marka alaabta ogaato oo aad la heshiiso adigu waxa samaysan kartaa marka online business ayaa samaysan kartaa dharkoodii sawirada ka soo qaadanaysa alaabta hayaan sawiradooda adna dib baad ka soo xayeysiinaysaa markuu qofka alaabta uu ka iibsado iyag baad u gudbinaysaa tusaale haddii iyagu ay shaygan siinayaan $8 adigu waxaad siisanaysaa $11 ama $10 $2 ama $3 faa'iidada ayaad ka qaadanaysaa qofkii alaabta hayay baa u deliver gareynaya alaabta u dhiibaya runtii Soomaaliduna aad bay u soo fahmayaan drop shipping-ka in Soomaaliya gudihii ganacsiyadu aad u danaynayaan qof kasta wuxuu rabaa in macmiil loo keeno oo macmiil u yimaado isagoo kharash badan iyo xoolo badan bay aan gelin oo aan waqti badan ku bixin alaabtiin qofka u keenayna commission-kaas ka faa'iidayayo intaasi runtii waa faa'iido lagu bilaabi karo haddii aad qof marka dhaqaale heli kara tahayna waad bilaabi kartaa oo waad dalban kartaa suuqyada Alibaba iyo Shein baad ka dalban kartaa runtii koorso waxaan ku diyaarinay lagu baranayo sida looga soo adeegto Alibaba iyo Shein iyagana waxa ka soo dalban kartaa WhatsApp linkiga yaala description-ka yaala ama number-ka soo muuqanaya qoraalka video-ga qodobka saddexaad waxaan arki doonaa ama alaabta saddexaad ee runtii faa'iido fiican laga heli karo qarashkeedu aad u yar waxa kamid ah qalabka moobilada loo isticmaalo oo dhani runtii waa waxyaabaha aadka suuqa u leh weeye dadku telefoon la'aan ma noolaadaan sidaa darteed alaabaha
taleefanada iyo la xiriira qalabka taleefanada waa low risk iyo khasaarahoodu aad buu u yar yahay sababtoo ah maxay wax daily life oo maalin walba loo baahan yahay waxyaabaha aadka loogu baahan waxa kamid ah phone cases oo galalka moobilada iyo chargerada power bankiyada lagu dabayo taleefanada iyo earphone-nada iyo waxyaabaha phone holderska ah ee taleefka lagu qabsado qalabka phone holderska oo runtii caawinaya dadka TikTokers-ka iyo dadka fiidiyowyada ku duubta iyaduna waxyaabaha aad suuqa u leeyahay intaasi waxay kamid yihiin iyo waxyaabo badan oo qalabka la xiriira moobiladuba kuwa ugu markaa fursada ugu fiican haysto oo suuqooda ayaa aad u badan qiimo jaban baad ku helaysaa baahidoodana aad buu u badan tahay taasi waxay keenaysaa faa'iido degdeg ah inaad ka hesho marka taasina waa fikradda saddexaad iyo alaabta saddexaad ee runtii faa'iido fiican leh khatarteeduna ay yar tahay waxaan soo qaadan doonaa qodobka afraad alaabaha guryaha looga baahan yahay ama la yiraahdo home products-ka alaabaha yaryar ee guriga loo isticmaalo sida kitchen toolska oo ah qalabka loo isticmaalo jikada ha noqoto waxa la yiraahdo bahalaha cabitaanada lagu shiido oo runtii la soo dhisan gareeyo oveniska ama waxyaabaha cookerska cuntada lagu karsado waxyaabaha markaa runtii jikada aad loogu baahan yahay iyo waxyaabaha tusaalaha alaabta lagu jarjarto oo ay mididii iyo wixii hore ooliga ah meesha ka saaraya runtii waxyaabaha alaabaha jikada inta badan loo isticmaalo waa alaabaha suuqa leh weeye waa haddii qofku uu keeno markaa alaab waxa weeye baahi xalinayso oo waxa weeye tayadeedu ay fiican tahay waxyaabaha kale oo muhiimka waxa kamid ah qurxinta guriga waxyaabaha guryaha lagu qurxiyo ha noqoto daahiyadii ha noqoto fadhiyadii ha noqoto roogagii waxyaabaha markaa guriga lagu qurxinayana iyagana waa muhiim waxa kale oo kamid ah agabka nadaafadda loo isticmaalana runtii qayb ayay ka yihiin way fudud yihiin waa alaab fudud runtii qiimo badanna ma laha oo faa'iido fiican buu qofku ka sameyn karaa hadduu keeno alaabaha markaa jikada looga baahan yahay qurxinta guryaha loo isticmaalo iyo agabka nadaafadda oo kuwooda ugu fudud hadduu qofku waaweyn keeni karana isaga iyo jeebkiisa ay ku xiran tahay laakiin waa waxyaabaha aan dhulka u dhicin sababta baahidooda badan aad baa baahidoodu ay u badan tahay qodobka shanaad waxaynu soo qaadan doonaa beauty and personal care waxyaabaha la isku qurxiyo ee qofka jirka loo isticmaalay iyo timaha iyo aad ba iyaguna muhiim u yihiin oo suuq u leeyihiin alaabaha quruxda ah ee laakiin dabiiciga aan chemicalka lahayn aad runtii hadda dee adiguna dad keento alaab chemical ah adduun iyo aakhira midna faa'iido ka heli maysid adduun faa'iido ka heli maysid oo dee gabar baa isku cadaynaysa wixii iyaduna ku aakhira seegaysa adiguna waxaa noqonaysaa kii u fudeeyey marka iyaduna dhibaatay keenaysaa marka nan chemicalka waxyaabaha chemical aan lahayn ee dabiiciga ha noqoto saliidaha timaha iyo maqaarka loo isticmaalo agabka make-upka brusheska iyo toolska kale ee muhiimka ah ee la isku qurxiyo ee aan chemicalska ahayn ee naturalka ee dabiiciga ah runtii iyaguna suuq bay leeyihiin oo aad ayaa dad waaweyn dad dhalinyaro ah iyo dhalinyartuba ay aad runtii ugu gataan ka fogow waxyaabaha leh chemicalska badan bilowga aad uga fogow waa sababta waxa weeye waxba faa'iido badan ka heli maysid haddii aad faa'iido ka heshana runtii faa'iidadu ma aha xoolo iyo lacag kaliya faa'iidadu waa inaad eegto shaygan manficiisu xalaal ma yahay mise waa xaaraan ka ganacsigiisu maxan ma bannaan tahay mise ma bannaana laftigeedu faa'iidada meesha laga eego weeye gunaanadka waxaynu kusoo ururin doonaa haddii aad rabto ganacsi online oo khasaaro yar si fudud u bilow suuq adigu marka tallaabo u bilow si aad suuq ballaaran runtii u gaarto waxa weeye dee roomo maalin laguma dhisbay Soomaalidu yiraahdaan waa inaad wixii tartiib u bilowdaa si aad horumar uga gaarto markaas alaabtaadu noqonaysaa mid runtii suuq yeelata dadkuna ay runtii ay ka faa'iideystaan haddii aad videoga wuxuu ka faa'iiday fadlan like noo saar commentiga ku soo qor alaabta aad rabto inaad iibiso subscribe si aad u seegin casharada kale oo ganacsi ah oo runtii aan ku soo gudbino YouTube kan